بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرك وزارة ganacsiga مدن محمد حسن سعد، قدوميها ركن ganacsiga مدن جمال عيديد إبراهيم، قدومياشا أما مامورياشا شركتها واوين، shaqaalaha rugta ganacsiga, shaqaalaha kale ee hoteelka, ganacsatada, saxaafadda, dadweynaha ama macaamiisha ka soo qayb galay xafladatan, ciidanka, suxufiyiinta iyo marti sharafta kale. Marka hore waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahad celinayaa marka hore mulkiilaha hoteelka oo sida wanaagsan ee halkan inoogu sharaxay. waxaan kaloo si gooni ugu mahad celinayaa shirkadaha waaweyn ee iyaga la-aantood ayna qabsamteen carwadatan oo ay ka mid yihiin dahabshiil, telesom, DB World iyo Last Group. waxaan kaloo u mahad celinayaa saxaafadda oo iyadu xafladii furitaankii si live inoogu sii deynaysay hawada, meel kasta lanaga daawanayay. aad baa umahadsantihiin. waxaan u mahad celinayaa kaloo shaqaalaha carwada soo qaban qaabiyey sida hufan 7 cisho ay noo socotay u shaqaynayay. waxaan u mahad celinayaa ganacsatada ka soo qayb gashay. aad baad u mahadsantihiin. waxaan filayaa oo rajaynayaa in himiladiinay ahayd inaad heer ka gaadhaan 7 cisho wax iibkiinii in uu idin heer galay. xafladda waan maanta oo ay bishu tahay 15 December 2018 waa maalintaynu xafladda xidhi doono. waxay noo jooga halka inagula martiya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo isagu noo soo xidhi doona. inta aanan mahadcelinta u gudbin waxaan idin yar akhri doonaa tartiibta barnaamijku inoogu dhici doono. waxaan ku furan doonaa kow aayadaha qur-aanka kariimka, waxaan ku xigsiin doonaa heesta qaranka, waxaan ku xigsiin doonaa hadalladii oo inoo bilaabmi doono ugu horreysiin doono mulkiilaha hoteelka Guuleed Hotel. waxaa iigu xigi doonaa kelmado yaro kooban oo ina odhan doonaan ganacsatada waaweyn, shirkadaha waaweyn. waxaa iigu xigi doonaa hadalka guddoomiyaha rugta oo isagu ku soo dhoweyn doona wasiirka. sidaasina way noogu xidhmi doontaa xafladdu. Allah
idinka wada mahad celinayaa dhammaantiin kasoo qaybgalka xafladda xidhitaanka. marka hore anigoo ku hadlaya magaca hoteel guuleed oo gobashan aad igu sharafteen amba jambarka ha ka timaado qorfa tijaara amba dadweynaha oo ah rugta ganacsiga ee somalilan inta ka joogta ay matalaan waxaa keenay quruxda waxa weeye wadajirka waxaa keenay quruxda kala jaadka aynu nahay haddii dukaamo kala jaadi midna meel laga furo iyo haddii 100 dukaan meel la iskugu keeno way kala qurux badanta marka quruxda waxa keenaysa inta qof ee ku soo dhiiratay inay ka soo qayb gasho iyo dadweynaha oo sharfay amba ka bareeray amba yimidba inay xafladan ka soo qayb galaan carwadan. marka ugu horeysa waxaan mahad u celinaynaa haddii aan nahay ganacsatada waaweyn ee carwada sideed ka soo qayb gashay madaxda jambarka ee suurtagelisay inay carwadatan sideedaad qabato runtii juhdi badan bay geliyeen ganacsatadana u muhiim weeye waxaana kula u bandhigaan inay naga soo qayb galaanta dambe marka carwadani muhiim bay u tahay waddanka dadkaa isku bartaa ganacsatada isku barataa haddii dadii kale yahay ganacsigaa ku kubca marka aad iyo aad baan runahaanta horta jambarka uga mahad celinayaa qabashada ay inoo qabteen carwada sideedaad. marka labaad waxaan u mahad celinayaa macaamiishii timi special dahabshil group anigoo ku hadlaya magaca dahabshil group macaamiisha noo timi ee ka adeegatay oo runahaantii sanadkan xagbaaf ahay aad iyo aad ayaa runtii qaybaheeda kala duwan ay macaamiishu isugu timi dad aad u tiro badan oo sanadkii hore ka badan ayaa na soo booqday oo adeeg fara badan aan u fulinay aad iyo aad baan macaamiishaasna ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa ganacsatada ka soo qayb gashay carwada sideedaad oo iyaguna qayb ka ahayd inay laysdhaafsado baaca mushtariga meesha yaalla ama ha ahaato ganacsatada waaweyn ama kuwa yar ha ahaatee annaga dhexdeedii baa isdhaafsanay ganacsigii oo wax kala iibsanay aad baan qoladaana ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa guddoomiyaha hoteelka cali cumar guuleed oo run ahaantii u dhabar adeygay carwada sideedaad oo ay isugu timi aan odhan karo somalilan iyo in ka baxsan waa isugu timi oo waxaasoo ummada kala horayey oo hoteelkiisu u dhabar adeygay cali cumarna waxaan leeyahay hambaliga ayaan ku leeyahay cali cumarna aad iyo aadna waa umahadsan tahay. waxaan si gaar ah halkan uga mahadnaqayaa rugta ganacsiga oo inoo qabanqaabisay carwadii sideedaad oo runtii qiimo badan ay ka muuqato iyo in xoog badan iyo juhdi badan la geliyey marka loo eego qaabka loo soo qabanqaabiyey qaabka loo habeeyey qaabka looga soo qayb galay iyo qaabka loo soo gunaanaday intaba. waxaan kaloo iyaduna si gaara uga mahadnaqayaa shaqaalihii carwada qabanqaabinayey ee ay ugu horeeyaan cabdishakuur iyo gruubkiisu oo runtii nidaam fiican oo ah kolba wixii looga baahdo ama qaabka loo habaynayo ee carwadu u socoto runtii si fiican uga qayb qaatay. waxaan iyadana aan la dhaafi karahayn gudoomiyaha maamulaha hotel guuleed cali oo runtii inoo sameeyey waxyaabihii hodheel lagu aamini jiray ugu horeyso space wanaagsan adeeg hufan raaligelin iyo adeeg mar kasta joogto anytime aad heli karayso isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloon si gaar ugu mahadnaqayaa shirkadaha Talison Group ee halkan fadhiyey Dar es Salaam Bank, Samgas, Mat iyo Talison oo runtii muujiyay dhowrkii cisho halkan shaqada ka socotay dhabar adeeg adkaysi iyo in loo adeego wixii halkoo yimid oo ahaa in macaamiisha shaqaalaha la raali geliyo. waxaan kaloo si gaar ugu mahadnaqayaa macaamiishii faraha badnayd ee Talison ka socotay oo runtii saddexdii cisho ugu horeeyay culays xad dhaaf ah ku keentay carwada waxaan fara badan la keenay
annagoo raali gelinay macaamiisha iyo dadkayga sharafta le ka soo qayb galay waxaanu go'aansanay adeeggii aanu ku bixinaynay intii carwada maadaama ay xamili kari waana cooyskii saarnaa inaynu jejebinno dhammaan xarumaha shirkadda si loo raaligeliyo shaqaalaha ka soo qayb galay waxaan ku soo gunaanadi lahaa carwadani waxay tustay awoodda dhaqaale ee dalku leeyahay inaynu nahay dad u dhibirsan ama u heelan inay samayn karaan ama hirgelin karaan ama qabsan karaan wax kastoo ganacsiya oo lasoo bandhigo runtiina waxa weeye waa ummad tashatay horumar badan ka muuqdo runtii horumarkaa iyo nabaddaa socota amnigaa ka kowa waxaana ugu horeeya aynu ku taagannahay ama bilariska dalku ku dhisan yahay waa dawladda markaa run ahaantii waa inaan ilaalinaa amniga anigoo ku hadlaya magacii rugta ganacsiga guud ahaan madax iyo shaqaale iyo guddi fulineedba waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo naga soo ajiibay nagala aqbalay inuu inoo furo carwadii 8aad ee aynu ku qabanay habeenka caawa maalinka maanta magaalada Hargeysa waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirka ganacsiga oo runtii intii uu joogay wasaaradda ganacsiga wax badan la qabtay iskula soo dhaweeyey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska iyo ganacsatada oo wax badan danahooda uu ku murma uu isku soo dhaweeyey kuna hawleeyahay isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha guud ahaan waaweyn iyo yaryarba oo aanay la-aantood suurto gasheen hawshan quruxda badan ee loo qabsantay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa cali cumar guuleed mulkiilaha hoteelkan oo runtii 48 saacadood aan habeen saacad iyo midib toona ka dhex bixin intii uu habeenayay quruxdaa ka muuqata meesha aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intaan markaan ka gudbo carwadaa 8aad ee aynu qabanay marka loo eego da'da uu jiray dalkeenu waa 27 sannadood runtii waa wax weyn oo lagu faano oo aad iyo aad aynu uga horeyno dalal badan oo muddooyin fara badan jiray oo aan intaan la qabsan taasi waxay tusaysaa sida ay dadkeenu ugu wacan yihiin ama khibradda ugu leeyihiin ganacsiga waxaa kaloo ay carwadani kaga duwan tahay carwooyinkii hore in ka badan 25% haddaan horeba 30 inta halkaas iska xigta oo dhami waxa weeye wax soo saarkii dalka oo ah runtii wax lagu faano wax soo saarkii dalka waa warshadihii waa beerihii waxa weeye iyo muxuu ahaadii iyo kalluumaysigiiba waxay suurto geliyeen inay lacag badan oo adag inoo soofgareeyaan waxay suurto geliyeen inay gaadhaan heer ay dibadda wax u dhoofiyaan wax badan hadday furniture tahay hadday biyo tahay hadday sharaab tahay hadday kookoola tahay wax alla waxa inoo yaallo oo dhami waa wax inoo soofgareeyo lacag adag oo dibadda inooga bixi jirtay oo aynu maanta ku faanayno inaynu horteenna ku iibsanno dibaddana u dhoofino inta kale ganacsatada adeegga inoo samaysa iyaguna waa ogtihiin heerka ay taagan yihiin inaan caalamka halka ay gaadhsiiyeen adeegga isgaarsiinta iyo haddii raba xogmaayo baananka oo ay daarasalaam iyo daharshiil bank bay inoo sameeyeen inaynu ka adeegano oo ayna siiyaan maalgelin halkii aynu markii hore beedkeenna sallada ku ridi jirnayna maanta waxay noo kala haraan oo iyaguna ay maanta meesha doonto dunida kaaga furayaan LC lacagtaa doontana ay ku maalgelinayaan oo ku amaahinayaan marka aad shuruudaha ka soo baxdo iyagana waan u mahadnaqayaa runtii carwadaa 8aad waxay inoo muujisay baaxadda dhaqaalaheenu leegyahay oo aan ku boorinayo ganacsatada guud ee wax soo waarida inay iyaguna u bedelaan oo ay lacagtooda dalka u furaan si shaqaalana loo abuuro waxtarna loo abuuro inay alaabtooda soo iibinayaan inay wakiilada u yihiin warshado u bedelaan ay dalka ka sameeyaan dhallinyaradeeduna ay shaqo uga hesho lacag adagoo badan inay loo soofgaroodo waxaan qabaa inay kari karayaan qoladana waan ku boorinayaa
tacab badan bay naga muuqdeen 7 cishaynu shaqaynaynay waxbaynu kala iibsanay waa isku barannay haddii ilaahayna gaadhsiiyo sanadkiisana waxaanu idiin ballan qaadaynaa inaan tan iyo mid kasii qiimo badan waanu ka faa'iidaysanay wixii qaladaad iyo saxbayna soo maray ayaanu ka faa'iidaysanay baanu idiin qaban doonaa waana idinku soo dhaweynaynaa mar dambe iyo mar horeba waxaan idinku mahadnaqayaa sida uga soo qayb gasheen ganacsatada sida waktiga uga faa'iidayseen iyo sida dadka wax uga iibiseenba iyo sida magaciina u hirgeliseenba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa shirkadaha waaweyn ee halkan laga magacaabay ee shanta haddii aanay iyagu jooginna runtii oo sponsor ka noqon oo aanay lacagta maalgelintaa hore meesha lagaga shaqeeyo bixin iyana may suurto gasheen waa u mahadnaqaynaa iyo kuwii ku xigayda iminka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka ganacsiga marka uu hadalkiisa dhameeyana waxaanu bixin doonaa shahaadooyin laga raalli ahaada kulligii ma wada gaadhsiin karno marka hore inta waaweyn baanu siinaynaa marka dambena qol walba ilaa maanta intaan la rawaxin waxaanu ugu geynaynaa shirkad wal oo halkan ka soo qayb gashayba shahaadad bay nagu leeyihin oo aanu siinaynaa taa ku bushaaraysta waxaa kale oo aanu idiin sheegaynaa wakiilahana uu naga aqbalay caawa ilaa labada inaad ka xidxidhan kartaan alaabta oo aad guuri kartaan ilaa galabtana waa shaqaynaysaan haddii aan la yidhaha wixii waaweynayda rari karayna berrita waa usoo noqon kartaan laakiin wixii alaabay aad raran kartaanna marka caawa carwadu xidhanto wuxuu wakiiluhu noo ballan qaaday sidii horeba nooga shaqaynayey ilaa saacadaha dambe markay idinku gaadho inaad taawaashaysan kartaan waxaan ku gabagabaynayaa dhalinyaradu canaan bay leedahaye sidii cali sheegay hiddaha iyo dhaqanka aad ha loo iibsado oo hala tixgeliyo waa waxaynu ka soo jeedno wey ku soo dhawo mudane wasiir gudoomiye xafideenka ganacsiga madaxda shirkadaha waaweyn ee calamadani inay dhacdo suurtogeliyey inta kalena way suurtogelin lahaayeen laakiinse imkaaniyaadkooga ilaahay siiyey ay ku deeqeen iyay un baan ku hadal qaadaynaa dhammaantiin ganacsata waad wada mahadsantihiin mulkiina hoteelka guuleed dhowr goor baa lagu magacaabay waad ku mahadsan tahay walaalayaal waxa weeyaan nabadgelyo horta mahadsanid meel ay nabadgelya ayna jirin sidani maanta aan u taagannahay iyo carwadan quruxda badan lama suurtoobadeen nabadgelyada badanka waxaa ka mas-uula dowladda laakiinse hadduuna shicibkeedu la shaqaynayn dowlad nabadgelyo ma samayso waxaan kaga gadisannahay dadka ku nool qarniga gobolkani moogtahay la yidhaahdo moogtahay qarni afriqiya waxaan kaga gadisannahay dad fiican waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay meelo badan dadaaluu socdaa in nabadgelyada la ilaaliyo waa la wada jecel yahay laakiinse waxa weya weli waa lagu guulaysan laayahay waxaan kaga gadisannahay dad fiican oo iyagu nabadgelyada ilaalinaya nabadgelgala-aanna waxba inooma suurtoobeen waxaa mahadle dadweynihiinani halkan isku yimiday oo qaar aada lagu khushuucay waayo waxa weeyaan waddankeenna oo dhibaatooyin badan ay haystaan xag oqoonsiyo xagyaabo badan in dadkeennii ay tallaabooyinka ay qaadeen gacantooda waxay ku sameeyeen maanta halkaa safaya waxaan filayaa sanad ama dhowrka sane ee soo socda meeshaba waxa dhulkeeda lagu sameeyey inaad ka buuxin doontiin aan weliba dibadaha u dhoofin doono wax markaad samayso waxa weeyaan cala aqal ha yaraadaba lacag dibadda inooga bixi lahayd iyuu inoo safe garaynaya haddaad dhoofiso ood moog tahay tayadeedii la timaadanaba dee lacag dibadda moogtahaan adag iyo dibadda inooga soo hoynaysiin waxaan ugu boorinayaa carwadan carwadeeda in moog tahay way qurux badan tahay tani aad baan ugu khushuucaya inaa carwad moog tahay cajiiba oo weliba caalamkaad ka soo qayb gelaysiin ood kula tartantiin ay halka ka dhacdo waxaan intaa ku darayaa walaalayaal carwadani carwo aada u muhiimay ahayd carwo
qiimaysan bay ahayd carwada furitaankeedii madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi halkan nusu saac oo khudbad ka akhriyey qiimaheedu ka warramayey marka waa sharifteen dalka laakiinse idinkana waa laydin sharifay waxa weeyaan mid kala ku daraya dowladnimadu waxay ku dhisan tahay shicibkeeda shicibkuna kaalmuu kala leeyahay dowladdeenu ma dhaqaaqi karto haddii ayna ku tiirsanayn ganacsatadeeda ganacsatadu waxa weeyaan ta dhulka waddanku uu ku dhaqdhaqaaqayo waxaan jecel lahay iyo dowladda inaan saaxiib dhow noqono waayo markaan aada u saaxiib dhow noqono iyaa maogtahay ay noqonaysaa in maogtahay horumar la tiigsan karo dowladdu waad ogtihiinoo waxba iyaduma soo saarto laakiinse kastoo wax soo saaray waa ninka ganacsanaya intaa uu kolba la siiyo uma wax ku hirgelinaa haddii haddaba saaxiib dhow aan noqonaynana dee maogtahay annagana maogtahay hawlo si fiican lagu hirgeli maayaan aada iyo aad baan usoo dhaweynaa ganacsatada inaan meel ka wada aanba qaadno iyaguna ay meel aanba qaadaan annaguna aad baan u jecelnaha in maogtahay haddii kollay maogtahay nina keen buu leeyahay nina keen baa la leeyahay dee ninka keenle in loo dhiibo unu jecel yahay kan laakiinse keen la leeyahay dee jeebka saa hoo soo saara sometimes iskaelaad kaa kartaa laakiinse noo fududeeya oo waxaan adigu halka kaga faa'iidaysanayaan leehay waddankeenna ganacsatadii waa taa waad joogtiin lama wada joogo run ahaantii laakiin waxa weeyaan caalamiyan adduunyada ganacsigu iskama furmo ulama socdano laakiinse waxa weeye markaan eegay dee dad badan oo moogtahay laysawada qaata waddanka waa jiraan laakiinse markaan laalasi sameeyey ee baali sameeyey 80% adeer waad ganacsatiinoo laysama ma haysatiine dee laysamada ka qaado oo dowladduna moogtay amnigiina si aad u ilaaliso dadka u dhaqaalayso dee lagala qaybgala waad mahadsantahay doonaa qaybinta shahaadooyinka gold sponsorska waxaan u yeedhi doonaa shirkadda ugu horeysa cidda u guddoomi doonta waxaan ka codsan inay soo kacdo waa shirkadda Telesom Group ومعتين تلسم جروب waxaan hadda u yeeri doonaa cidda u gudoomi doonta shirkadda Dahabshiil Group waxaan hadda u yeeri doonaa cidda u gudoomi doonta shirkadda Las Group u gudoomi doonta DP World way fahmaysaa waxaan u yeeri doonaa mulkiilaha Guuleed Hotel ama maamulka oo waxa u qaadi doonaa Abaadir waxaan u yeeri doonaa tiimka Silver Sponsorska waxaan u yeeri doonaa cidda ugu horeysa u qaadi doonta Decoration Palace company Premier Bank waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta shirkadda House Petroleum
shirkadda Haas Petroleum. Fadlan cidda u qaadi doona, welcome to stage. hadda waxaa yeeli doonaa shirkadda cidda u qaadi doonta Sham Factory. aad bay u mahadsanyihin shirkadaha silverka. waxaan u yeeri doonaa hadda bronze sponsorshipka qolada dhexeysa oo ugu horeeyo hightech cidda u qaadi doonta. makuwa la samay hadda waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta shirkadda weyne Takaful Insurance. waxaan u yeeri doonaa hadda company Al-Amin Pharma cidda u qaadi doonta. Al-Amin Pharma ama Al-Amin Pharmaceutical sida u yaqaanaan qof walba. waxaan u malaynayaa okay waan ka gudbi doonaa. waxaan u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta Baynax Medical. okay labadii qof u dambeeyay waxaan u yeeri doonaa labada shirkadood ee aadka uga qayb qaatay qurxinta waa shirkadda Color Zone iyo Sagal Jet. hadda waxaan u yeeri doonaa shirkadda cidda u qaadi doonta Color Zone. runtii waa labada shirkadood sidaa quruxda badan ee decorationska iyo wixii daabacaada inoo sameeyay aad bay u mahadsanyihin. waxa aan hadda u yeeri doonaa cidda u qaadi doonta shirkadda weyn ee iyadna Sagal Jet. waxaan u malaynayaa la-aantood labadaas in shahaadooyinkan quruxda badan leh iyo environmentkan aan fadhino ayna suurtagelahayn. aad baa u mahadsantihiin. waxaan soo xidhi doona guddoomiyaha.